السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada barashada xisaabta boqoleyda oo taxanayno ahayd. magacaygu waa Shiine Gestir. caawa waxaan ka hadlaynaa xisaab runtii aad iyo aad muhiim u ah oo laga maarmin. Percent increase and decrease. Increase waa markii boqolkiiba ay tiro kordho iyo markii ay boqolkiiba tiro hoos u dhacdo. Decrease waa markii hoos u dhaco wax, increase waa markuu kordho. Su'aasheena halkan ugu taala waxay naga caawinaysaa inaan mawduuca caawan ka hadlayno aynu fahano. Sanadiina soo dhaaftay ee 2016 tirada dugsiga sare ee Axmed Gurey waxay ahayd 20,000 oo arday, balse sanadan cusub ee 2017 ardaydu waxay noqdeen 25,000. haddaba boqolkiiba imisa ayay tirada ardaydu korodhay? waa increase ayaa la dhahaa markay tiro korodho. luqadda Ingiriiska waxaa la dhahaa increase. marka waxaa laynooga fadhiyaa boqolkiiba inta ay tirada ardaydu korodhay. waxay naga caawinaysaa inaan ka shaqeyno su'aashan formulaga halkan noogu qoran ee dhahaya percent increase. boqolkiiba inta korodhay waxay la mid tahay difference isbedelka oo loo qaybiyey original amount tiradii hore oo lagu dhiftay 100. marka waxaa muhiim ah inaan soo helno difference-ga oo fahano difference-gu muxuu yahay. difference-gu wuxuu yahay ardaydu markii hore waxay ahayd 20,000 soo maaha, 2017 waxay noqdeen 25,000. marka difference-gu waa maxay? isbedelku waa maxay? isbedelku waxa weeyaan 5,000 ee ku soo biirtay. 5,000 ayaa soo helaysaa. waxaad dhahaysaa 25,000 oo ardaydu noqotay oo laga jaray 20,000 waxay la mid tahay 5,000. 5,000 weeye difference-gu waa ta isbedelka sameysay. original amount-guna waa tiradii hore ee ardaydu ahaan jirtay 2016. markaasaad ku dhufanaysaa 100. bal haddaan xisaabta gashano percent increase wuxuu la mid yahay difference oo ah waxaan soo helnay 5,000 ilaa 5,000 ma kusoo biirtee loo qaybiyey original amount oo ahaa 2016 ardaydu imisa ahayd 20,000 oo lagu dhuftay 100. xidigtaas waxay la macno tahay ku dhufasho. haddaad xidigta meesha ku aragto xisaabta waa ku dhufasho, waa isku mid calaamadan iyo calaamadan. waaye bal aan xisaabino. percent increase boqolkiiba inta ay korodhay waxay la mid tahay 5,000 loo qaybiyey 20,000 oo lagu dhuftay 100. 5,000 waa difference-ga ardayda soo korodhay isbedelka sameysay ee ka dhigtay ardadii 20,000 ahayd 25 loo qaybiyey 20,000 oo ahayd ardadii hore ee 2016 waa original amount-gii. aan xisaabino marka. calculator-kayga anigu isticmaalayaa 5,000 loo qaybiyey 20,000 waxay noo soo baxday eber dhibic 25. markaasaad ku dhufanaysaa 100 lagu dhuftay 100 waxay la mid tahay 25. calaamadii boqoleydina waa ku darsanay halkaas. waxaad ku soo heshay jawaabtii lagaaga fadhiyey. 25 boqolkiiba waa tirada ay korodhay 2017 dugsiga Axmed Gurey. sidaas ayaad uga shaqeynaysaa markii ay kaa soo harbaxdo su'aal increase ah. su'aasheena labaad ee halkan noogu qoran iyadana waxay naga caawinaysaa inaan mawduuceena fahno.
dukaanka dharka ee Axmed Gurey ayaa waxa uu soo jabiyey $80 shaatiyada dhalinyarada oo halkii xabo qiimihiisu ahaa $200. haddaba boqolkiiba imisa ayuu qiimaha shaatigu hoos u dhacay? tii hore waxay korodhay, tanna waa hoos u dhacay. hoos u dhacay English waxaa lagu dhahaa decrease, waa hoos u dhac ama uu soo jabiyeen. marka isagana waxaan isticmaalnaa formulagan waa isku mid, magaca increase decrease-ka ama ku kala duwan yihiin. kan ay ku kala duwan, kan waa decrease hoos u dhacay, kanna waa increase, laakiin qaacidada sida kale waa isku mid. percent decrease boqolkiiba intay hoos u dhacday waxay la mid tahay difference isbedelka ku yimid meesha loo qaybiyey original amount, isbedelka ku yimaaday loo qaybiyey original amount, qiimihii hore ama tiradii hore oo lagu dhuftay 100. haye bal aan tan xisaabino. waxaan dhahaynaa marka hore shaatigu wuxuu ahaa $200, waxaana la soo jabiyey $80. markii la kala jaro labadan, $200 baan dhahaynaa. $200 laga jaray $80 waxay la mid tahay 200 laga jaray 80 waxaan ognahay inay tahay 120. tan calculator uga baahan 120 kan waa difference waa isbedelka meesha ku dhacay. shaatigii 200 ahaa 80 ayuu dadkii laga daayay, waxay noqotay $120. marka waa difference, saasan difference ku haysanaa. waxaan dhahaynaa marka percent decrease wuxuu la mid yahay difference oo ah maxaan soo helnay 120 loo qaybiyey original amount, tiradii hore ama qiimihii hore original amount-iga wuxuu noo ahaa $200. $200 oo lagu dhuftay, maxaa lagu dhufanayaa 100. waa xisaab runtii aad u sahlan. marka 120 iyo 200 isku qaybi kadibna 100 ku dhufo. calculator-kiga aniga soo qaadanaya 120 loo qaybiyey 200 raali ahaado 200 maxay la mid tahay? waxay la mid tahay eber dhibic 6. markaas eber dhibic 6 ayaan halkan ku qoran, markaasaan ku dhufanayaa 100. simple. eber dhibic 6 lagu dhuftay 100 waxaynu ognahay inay tahay 60. calaamadii boqoleedina soo gasho halkaas ku soo xir marka xisaabta. boqolkiiba 60 ayuu qiimaha shaatigu hoos u dhacay. waxaan rajeynayaa inuu videogan idinka afacay sida loo xisaabiyo increase-ka iyo decrease-ka. inta aan ku kulmi doono insha allahu tacaala videogan video la mid ah, waxaa idin sii dhaafayaa maanta nabad gelyo.